على نقطه وادي نفير باو قدام بيسي افر كنو نفاي قولي بي او متقانا maadaama ay abaar dhulka ka dhacday oo jiilaalka daba dheeraad wuxuu leeyahay shaaba ma jiro qajal yimaadeen wixii leeyahay wax ganacsi oo ka yimaada Itoobiya iyo dhulka xoolaha irmaanka ma leebsan xoolaha irmaanka waa leebsan laakiin ma jiraan wax irmaan ba abaartii waa dishaa wixii xaqaan joogno waqooyi ka xigan wax xoolaha jooga ma jiro xoolo waditay abaar bad hatta gurmad ma hayaan mataqaan dadkii iyo xooliba waa liitan aad u liitan saylada xoolaha ugu badan ee laga iibsadaa ma geel ba ma looba ma ariba ariga ugu badan dalabka dibida moogi ariga ugu badan dhoofka xoolaha loo iibsan jiray ma yaraatay mise way kordhay aad bay u yaraadeen xooluhu way yarihiin hadii la ilaa wala iibsan laakiin xooliba ma jiraan way yarihiin xoolihi abaar darteed abaar ba xoolo ku dhacday maya waxaan hay ganacsatada suuqa hilbleyda nafaqo markaas waxa weeye xooluhu imika waa nagu qaali maxay hay'ad lacagtooda fara badan saca 5,000 baan ku qalaa oo bir 5,000 oo bir 6,000 bir baan ku qalaa lacagta Itoobiyaanka markaas saca ama sadeen ku qala 5,000 qaybtaydu aan qaybaan qashaa 2 bar bay noqonaysaa markaa kun baan ka iibshaa ama 8 inta ka ordan way ku hadha marka hadii aan nahay maanta nafaqo anagu waan jeefnaa waan deemeysanahay lacagtana calihi ka kacay walaalo oo aan gaarsinayna ku lacagtoodii dadkii magaaladeena joogayna lacag ma haystaan qof islaanta u badan $5 la soo gashay sanbid $5 20 kilo hilib marka aanu ka iibsho waxa ugu saaran 10 kuma ugu saaran 10 kilo la gaarayso ma aragtay iyaga laftoodu way dhiban marka anagu waan dhibanahay imika caasho ku shida aad culays noo saar iyo xoolaha Itoobiya ka imanay عاشق وشده محد يقول لك كذا عاشق وشده وليس سيد النصارتي وضمر كاملة لا أفركم بيساسيستان لا أفركم بيساسيستان ليحكم بمركاي قوابا هنا يسال لما كنا فايدة يسار استاسي أنا ويابا هنا يسال اسكجر مركا أنا قصعي كم بان كايبنا يا أما لما كنا أفركم بيسار مركا معها مركا أيقو قاية ما فهمتي لا دي مركا دبتا وقول اسمها نصارية وحويا حولها هنا معنا يان إيتوبيا كخيريان لما كن صدح كنا فايدة نصارية waxay kugu sheegtay gabadhani caasho qoshba kugu sheegtay oo dumarka caasho qoshada ka soo iibsada xoolaha Itoobiya ayaa noo qaleeyay marka idinka ganacsigiina maxaa ereygan loogu bixiyo caasho qosh annaga caasho qosh waxa ereygan loogu bixiyo dadkan waxyaga waana maahinaa hadana maahinana waxna waan ka helaa waxna waan ka weynaa ya waxna waan ka helaa dadna waan ka weyno suuqaba way ka baxaan marka waxa weeyaan kulay faa'iido kama helayee iga sii daawaa qoshiye xaqana qoshiye han iibsado caasha qoshidu sida inoogu baxday waa sida warka weeyaan abdi xasan cigaal la yiraahdo saylad joog baan ahay gudoomiyaha sayladaan ahay marka horta xaq xooluhu way yaryiin aad bay u yaryiin inta yara timaadana waa qaali lama iibin karo qofkii qiimihii hadaad u siiso wuu diidayaa adigoo maanta oo dhan harbeey buu diidayaa qiimihii oo intaasan kuu siiyey ogolow hadaad tidhaahdo wuu ku diidaa xoolahaygu intan ma ahane in ka badan bay iyadan ku rabaa buu ku leeyahay saasaan iskula kadeedanahay marka wixiina awoo jeeb maran baad sidaa ula laabanaysaa haddee markuu qofkii kugu diido moogtaa wixii aad ma lihiday kaad ceeb jooggaasaan nahay annagu marka maxaad kula talinahay dadka xoolaha keena xoolahooga ilaahay baa u ciseeyey way qaaliyoobeen sidaa imika macnaha qofku markuu dadaalo dilaalkii uu yidhaahdo qiimahaasaan kuu siiyey waa inuu siiyo waayo anigaba waxaanu bay waxay ugu jiraan moogtahay neefkaasaan la jiraa oo ka lacag tare lama jiro moogtahay dhoofka
waxaa la siiyaa halku awal ka ahaan jiray 900 ka ahaan jiray iminka wuxuu taagan yahay neefka adhigaa ee dhoofka gelaya 1300 1400 yaa u sarreeya oo maxay 1400 riyaal ilaa 1300 waa xoolaha dhoofka xoolaha qaloodiga ee la qalayo riyaha waxaa la siiyaa 1200 1150 ilaa 1300 baa u sarreeya lo'da waxa weeye awal waxay ahayd qiimo yar nasiirano kulley roobkan iyo xoola yaraantu waxay keentay qiimo qaali ah waxaa la siiyaa iminka neefka lo'da ee u sarreeya 5,000 6,000 baa la siiyaa oo lacagta Itoobiyaanka birta ayaa la siiyaa dibida qiimaha u sarreeya dibida la siisaa waa 14,000 oo riyaal lacagta Itoobiyaanka dhoofka dibida iyo wixii ka hooseeya dibiye la dhoofinayo markii ay waayeen gasaarku waxay qalaan dibidaas la iibsaday iminka dibiga yar iminka boorkii halka ka soo jeeda 7,000 iyo waxa la siistay jarjar oo lacagta Itoobiyaanka markaas ay xoolii u qaaliyoobeen roobka da'ay iyo xoola yaraanta darteed geela ka waran isaga geela laftiisu uu qaaliyoobay ilaa waxa la siiyaa 9,000 8,000 iyaa la siiyaa hashiima oo Itoobiyaan ma Itoobiyaan ma la siiyaa iyo wixii ka hooseeya la siiyaa geela qiimaha muxuu ahaa wax isbedel bisha u dambeysay mise labadii bilood ee u dambeysay labadii bilood ee u dambeysay waa isbedelkaasi u jira marka xooluhu way sii qaaliyoobayaan xooluhu awal waxay noo gabayeen Itoobiya marka ka dambeysay sii kacayaan meel ay ku joogsadaan wali ma laha